Halkani waa Gaacir Media. wixii cusub waa barnaamij aad kala socon doontaan Gaacir Media Tube. waa barnaamij aan idinkugu soo gudbin doono warbixino wixii ka cusub adduunka ee la xiriira caafimaadka, teknoolojiyadda iyo wax la mid ah ee dhegeystayaasha iyo daawadayaasha iyo bulshada dhammaan hoos u tusay. Mar walibana waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina iyo daawashadiina. Suuqyada qoyan ee Shiinaha oo uu ka dilaacay cudur cusub. Suuqyadan ama sayladahan qoyan ee uu ka dilaacay cudurkani waxay ku yaalaan magaalada Hong Kong ee dalka Shiinaha. Cudurkani waa nooc ka mid ah infekshanada bakteeriyada, magaciisuna waxaa la yiraahdaa Group B Streptococcus. Bishii tagtay ee Sebtembar ayaa kiiskii ugu horreeyay lagu arkay magaalada Hong Kong. Ilaa iyo haatanna 7 qof ayaa u dhimatay. Tan iyo xilligii uu dilaacay safmarkan waxaa la diiwaangeliyay 80 kiis. Sida dhaqaatiirtu sheegeen, fiditaanka cudurkani waxaa sabab u ah kalluunka biyaha nadiifka ah ee lagu iibinayo suuqyada qoyan. Si looga hortago, dhaqaatiirtu waxay ku talinayaan in bulshadu aysan isticmaalin cuntada badda ee qoyan. Cudurkani waa cudur halis ah, inkastoo qofka uu soo rito calaamado toos ah aan laga dareemayn qofka, haddana qofka uu soo rito wuxuu waxyeeleyn karaa sida dhiigga, lafaha, sanbabada qofka, iyo sidoo kale wuxuu waxyeeleyn karaa qolfaha sare ee difaaca maskaxda iyo laf-dhabarta. Warbixinta ayaa intaa ku daraysa in Shiinaha aysan khibrad ka qaadan wixii ka dhacay Wuhan.